Stephen Covey waxa uu ka mid yahay qoraayada caalamka ugu caansan waxaana uu ku soo shaabaxay buugga 7 caado ee ay leeyihiin dadka waxtarka leh kaas oo carro adag wada gaadhay. Qoraagan Ameerikaanka ah waxa kale oo uu qoray buugaag badan oo uu ka mid yahay kan aanu eegan nuxurkiisa idinla wadaagi doono. Buuggan oo uu ugu magac daray 10 dardaaran waxa uu ku soo bandhigayaa 10 cashar oo muhiim ah oo noloshu ay bartay. Waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan. Ku soo dhawaada kanaalkeena Dhacdo Sida. Waxaan runtii aaminsanahay in 10kan qodob ay yihiin kuwo muhiim u ah in ay ogaato cid kasta oo danaynaysa in ay noloshooda horumar ka sameeyaan. Qodobka koowaad, dadku waa kuwo aan miisaamnayn isla markaana danaystayaal ah. Yeelkadood ee iska jeclow. Haddii aad wanaag fashid, waxay aaminayaan in aad dano kale iyo ismuujin aad ka leedahay. Yeelkadood ee adigu wanaag samee. Haddii aad guulaysatid, waxaad helaysaa saaxiibo been abuur ah iyo cadow xaqiiqo ah. Yeelko ee guulayso uun. Wanaagga aad maanta suubisay bariba waa la ilaawi doonaa. Yeelko ee wanaag uun samee. Runta iyo hadal cadaantu waxa ay ka dhigaysaa ku kol kasta lala diriro. Yeelko ee runta uun sheeg. Ragga iyo dumarka waaweyn ee sida afkaarta waaweyn waxa suurtagal ah in ay joojiyaan ragga iyo dumarka liidka ah ee caqliga aadka u yar leh. Yeelko ee sido oo xambaar afkaar waaweyn. Marka aad caalamka guddoonsiisid waxa ugu wanaagsan ee aad haysatid, barkood xumaan ayay ku niqi doonaan. Yeelko ee waxa ugu wanaagsan ee caalamka aad u huri karto si dadku waa ay jecel yihiin kuwa masaakiin